Hello, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan ka hadlayaa anugu koley Soomaaliya waan ogni maanta nimankii siyaasiyiinta ay ku shiray Garowe fadhiyay ee danta Soomaaliyeed iyo maslaxa wadaan la moodayay Soomay noqon arrinkoodii Soomaalidu inay barataa qurux badan soo arrinkoodii muu noqon shisheeye daaqada taagan oo u soo yeedhinaya waxay ku wada hadlayaan waxa meesha ku shirayay tuugtu dhashay beesha caalamka lagu sheego waa nimanka Soomaali horta ku soo duulay waa beeshan caalamka la sheego horta beeshan caalamka gaal iyo muslim leeyno kala sokeeyo beeshan caalamka la sheegana waa tuugta maanta Soomaali meesha niman Soomaali kuma shirayne laba garab oo beeshii caalamka oo kala qaysan baa shirayay anigu waxaan la yaabanahay ajaanib daaqad taagan ajaanib danaysta ajaanib shisheeya ajaanib gaal iyo muslim aan ku kala sokayn oo ka tala bixinaya una talinaya ummadda Soomaaliyeed siyaasigaagani waa daba dhilif waa daba qoodhi waa caada qaate waa dhuuni raac waa dhigi cab waa nin u shaqo tagay meesha kursiga reer hebel baa ku daba fadhidaan qabyaalad ah waxna kama heshaan reer hebel waxay ka helaan anigu waan waayay ka soo baarayo siyaasigan reer hebel ku daba fadhiyo si walba waanu baarayo wax reer hebel kan daba fadhiya ay ka soo gaadha way jiro faan iyo annaga meesha haysana waxaan ka ahayn ninka Soomaaliga meesha taga kursiga taga waa nin u shaqo tagay shisheeyana wuxuu bartay Soomaali nin muwaadin weyn ku jirin tuugtu dhalay lacag doonayo meesha joogo reerkooduna keenay reer hebel la ku yimid anu waxaan la yaabay hadaba Soomaali soddon sano maanta soddon sano joogtaa xilligii la qaybiyayna waa 100 sano Soomaali siyaasiga qabiilka daba fadhiya inuu yahay kan kala qaybiyay kan rajadii Soomaaliyeed iyo adduunka gaal iyo muslimba adduunyada aragtay dalal baa jiradee dad ka adduunka waxa ay uga duwanaanay kow qabyaaladu wax lagu soo sameeyay laba siyaasiga waa dhun raac daba dhilif daba qoodhi shisheeye kalkaal nin shisheeyaha u shaqeeya shilin raadisa nin muwaadin ama ahaato tali haddaba waxaa iga yaabiyey inbaa wuxuu yidhi ari shugo kama ilbaxo bahal ariga lagu didiyo taasada maalin walba markaa uu maqlo u didaa war haddaba Soomaali kama ilbaxda miyaa siyaasigan reer hebeliisan tuugan tuug dhalay ee daba fadhiya
ee waxbana ka soo gaarin haddana war dhulka khayraadka inagu jira maanta kamaynu baahiyeysnaaneen baahi baynama hayseen baahi wax la yidhaha iyadoo wayn kala teglayn khayraadka ilaahay dhulka inoo geliyey war meel kastuu geed qodaxli ku yaala shidaal baa ku jira aynu ka baahiyeysanay oo laaluush ka doorbidnay inaan laaluush ku qaadano dhulkeenna inaan nin walba dhulkeenna iibiyo oo siyaasi maanta Soomaaliyeed haddaan nahay ururka DKM anagu danta iyo midnimada Soomaaliyeed ayaan ka shaqeynaynaa anagu maanta waxaan u istaagnay anagoo bilaa shisheeya bilaa qabyaalada bilaa dhuuni raacnimo bilaa dabaqoodinimo bilaa dabadhilifnimo bilaa intaba ka nacab kana jecel dhulka iyo muwaadinimada war Soomaali miya laga waayay qof muwaadina war siyaasiyiintan Soomaaliyeed miya laga waayay nin muwaadina war maxay isu weydiin weydeen waxa isu weydiin weydeen Soomaaliyeed waa dhalinyaro ka dhibka ugu badan ku dhaca waadiga ka askariga loo isticmaalo waadiga ka taariiba ku dhamaaday waadiga ka diinta in laga saaro la doonayo waadiga horta hadeen dhul weyno diin ma haynayno anigu taasaan ni sheegay meel ilaahay aad ku caabudood ku tukataba dad weydo oo Falastiin noqoto Falastiin ta Afrika wallahi maanta Soomaaliyeed labada wada ee lama arkaan sheegay mid baynu raacinaa war ma tan wanaagsan baynu raacnaa mise taa aynu ilaa 100 sano ku soo halaagnay soo shaadana baynu raacnaa labada kala doorta 100 sano laga joogo maanta markii intay niman reer galbeed oo gumeystay ay yimaadeen awowga way rarteen sida xoolaha balse awowga bay naga dhawaa maanta ayaa bay naga dhawaa oo isaga wala qeybiyo cid meel la kama qaadan wixii intay doonaan ka haystaane maanta kan waa mid inta dhulkeena la qaatay khayraadkeena aan la soo celinay waliba ku xisaabtan qof kasto ana reehbel ka bixiyo ana siyaasi hebel waxa aragtay siyaasi mid Carabi ka dhaxadlaso mid reer galbeed ka dhaxadlayo mid Afrikaan kan madow wax ku dhaabin ka dhaxadlayo ama Kenya noqoto Ethiopia noqoto mar baad saaran saniyo hade malaha nimankan Soomaalida siyaasiyiinta noqdaaba malaha nasab Soomaaliyeed bilaa ka soo galaan Soomaaliya marka qiyaasto xaqiiqdu waxay tahay Soomaali hataa tahay wadanimadu ka dhab tahay islaam tahay aqoonta haysata la ilaaha illa muhammad rasuulullah war dhulkaagi maanta maxaa ka dhigay furin maxaa ka dhigay in ajaanib oo daaqada taagan inuu ka taliyo warmiyeen dad caadi yahay ficil baa loo baahan maanta kartiduna inay nagu jirtaan hadda doonaysa in lagu isticmaalo adiga dhulka laga qaato siyaasiga qabyaaladaysan daba fadhi hadda doonaysa in dhulkeena isbedel ka sameeyno umadiyada tashatee dhalinyarada maanta wax ku goosanaynayo SYL nimankii loo jiray 13 inaan 7 inaan baxayeen 13 inaan bay noqdeen markii dambe oo dhalinyarada ayaa dhulka aragtay xorriyadda u qaaday
oday koofiyad baclaa ama koofiyad birlaa ama qabyaalada ninka abuuraa caaqil iyo suldaan baana iyo maxay baan ahay aga la soo taagan siyaasi tuug dhalay lagu shaqaysanayana daba fadhiya wax rajo oo dalkan usoo wada ama dhulkan Soomaaliyeed usoo wada ma jirto haba yaraatee totally waxay usoo wadaan ma jirto tashabaan ku leeyahay Soomaaliyeed tasho anigu tashabaan ku leeyahay Soomaali ma rabno anagu qabyaalad dhalinyarada Soomaaliyeed ee shanta meelood loo kala qaybiyay waa soo qaymada anaga shantuba kii xortiina waa xor waan haynaa kii gubays haystana dhalinyarada Soomaaliyeed haday kaacdo isku xiranto DKM ta soo gasho DKM ka wada mid noqotaan la haysan maayo dhulkeena aqligeena ayaa talin maanta aqligeena ma talinayo ajaanib daaqada taagan ayaa talinaya taladu soo goynaya waa mid in dictator in lagu dhaxal wareejiya inaad waxba noqon adigu waliga in isu muuqataan adiga iyo kan kale ee Soomaaliga intaas baa laga taliya remote control baa lagu maamulaa ee aqligeenu ha taliyo aqliga dhalinyarada Soomaaliyeed baan doonayaa inuu taliyo kaasaanan ku rajooynahay war intii aqligii ajaanibka laga tago intii aqligii reer galbeedka laga tago kii carabta laga tago ayaa kii afrikaanka lagu shaqeynaya war afrikaanku muu kii shalay tolaaynu inagu siyaad baro jirayba intaasoo dawladdu qaaday xorriyad waxa adiga dib ku celiyo waa maxay wala lagu soo duulay inta la duulimaadka lagu hayay ogow Soomaali qof soo dhalinyaro Soomaaliyo dhagax tuurkii SYL oo kale lagu ku horeysanana siyaasadii lagu la qabtay leedahay hal lug bay leedahay siyaasad taa reer galbeedka hadii maanta lugteeda qabanno sidii Ingiriis iyo Talyaani way u yaacideen maanta way daaqadu taagan ka talinaya maanta cid isticmaalaya waa siyaasigaagan waa ninkan Soomaaliga barka xoog buu ku joogay dhulka maanta marka si aad fashilaysan siyaasadda ay kaliya mabaadiida marka fashilaysana de dhulka kaama haystee adaa tashano waxa noqon Soomaaliyeed aqliga dhalinyarada Soomaaliyeed baan doonayaa inuu shaqeeyo maanta waxa barateen aaladahaas adarkaas in ku wada hadlayna ama codkaygu ku soo gaaray inuu hayna shalay lama hayn markii ay soo waday halganka Facebook haysa YouTube haysa Twitter haysa war maanta hal meel baynu gabigeenu ku shiri karnaa inagoo wada joogna adduunka shalay laakiin lama hayn ku xisaabtan maanta inuu aqligaagu shaqeeyo qof kastoo dhalinyaro oo Soomaaliya ayaana fariintan u dirayaa. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.